duqeymo culus oo laga fuliyay guri ku yaala degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe madaxweyne xasan sheekh oo hambalyo u diray shacabka iyo dowladda Djibouti ee ku aadan 48 guridii ka soo wareegtay markii xornimada ay ka qaateen gumeysigii Faransiiska madaxweyne hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo war ka soo saaray kulan uu magaalada Muqdisho uu ku kula yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud siyaasiyiinta mucaaradka ah taliska ciidanka booliiska gobolka Banaadir oo gacanta ku soo dhigay dad lagu eedeeyay falal lid ku ah amniga wararka caalamkana waxa aad ku daawan doontaan Iiraan oo dilal iyo xarig ka fulisay gudaha dalkeeda aynu ka horeynay duqeymo culus ayaa laga fuliyay guri ku yaala degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe warar dheeraad ayaa ka soo baxaya duqeyn xagga cirka oo si wadajir ay u fuliyeen ciidanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA iyo kuwa saaxiibada caalamka oo lagu beegsaday guri ku yaala degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe guriga howlgalkan duqeynta la eegtay oo ku yaala xaafadda Howlwadaag ee degmada Aadan Yabaal ayaa la sheegay in shir uu uga socday xubno ka tirsan al-shabaab warka baxay dowladda federaalka ayaa lagu xaqiijiyay in howlgalkan ciidamada iskaashanaya fuliyeen isla markaana khasaare xooggan lagu gaarsiiyay xubno ka tirsan al-shabaab oo halkaasi shir ku lahaa ayaa lagu yiri warka qoraalka ah ee ka soo baxay ee dowladda federaalka Soomaaliya intuu socday howlgalka waxa gurigaasi ka kacay dab xooggan iyadoo la maqlay jug culus oo laga dareemay guud ahaan degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe taas oo muujinaysa in al-shabaab waxyeelo lagu gaarsiiyay howlgalkaasi sidoo kale qoraalka ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya laguma faahfaahin inta uu la eg yahay khasaaraha ka dhashay duqeynta xagga cirka ah ee lala eegtay al-shabaab waxaana howlgalkan duqeynta ah uu ku soo beegmaya iyadoo maalin ka hor ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka ay dib ula wareegeen gacan ku haynta masaajid cali guduud oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe NISA oo kaashanaysa saaxiibada caalamka ayaa kordhisay weerarada xagga cirka ah oo lala eeganayo xubnaha al-shabaab ee ku sugan deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe madaxweyne xasan sheekh ayaa hambalyo ku aadan 48 guridii ka soo wareegtay markii shacabka iyo dowladda Djibouti ay xornimada ka qaateen gumeysigii Faransiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhambaal hambalyo ah u diray madaxweynaha wadanka jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle shacabka iyo dowladda Djibouti munaasabada xuska 48 guuridii ka soo wareegtay markii ay ka xoroobeen gumeystihii Faransiiska madaxweynaha ayaa xusay in halgankii gobonimada Djibouti uu muujiyay awoodda iyo wax wada qabsiga dadka Soomaaliyeed isagoo bogaadiyay doorka muhiimka ah ee Djibouti ay ka qaadatay taageerada shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan intii lagu guda jiray marxaladaha adag ee dalka soo maray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa adkeeyay in dowladda federaalka Soomaaliya ay si dhab ah uga go'an tahay xoojinta xiriirka taariikhiga ah ee walaaltinimo dirisnimo iyo iskaashi ee kala dhaxeeya Djibouti taasoo saldhig u ah nabadda iyo xasiloonida geeska Afrika madaxweyne Xasan Sheekh ayaa shacabka dowladda Djibouti u rajeeyay horumar midnimo iyo nabad waarta waxa uu muujiyay in Soomaaliya iyo Djibouti ay yihiin laba dal oo walaalo ah oo wadaaga dano dhaqan iyo himilo fog madaxweyne hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa war ka soo saaray kulan uu magaalada Muqdisho kula yeeshay madaxweyne Xasan Sheekh siyaasiyiinta mucaaradka ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in uu soo dhaweynayo in madaxweyne Xasan Sheekh aqbalay in dhexda la dhigo arrimaha masiiriga ah ee la isku diidan yahay kadib kulankii dhexmaray qaar ka mid ah madaxda mucaaradka Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu noqon karaa bilow wanaagsan oo loo qaaday dhanka xal u helidda khilaafaadka siyaasadeed ee ka taagnaa arrimaha masiiriga ah ee taabanaya dastuurka dalka siyaasad loo dhan yahay iyo hanaanka doorashada dalka waxaan soo dhaweynayaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aqbalay in dhexda la dhigo arrimaha masiiriga ah ee la isku diidanaa ayuu yiri madaxweyne Farmaajo kadib war-saxaafadeed uu soo saaray Farmaajo ayaa sidoo kale sheegay in lagama maarmaan ay tahay in dastuurka uu saldhig u noqdo xal u helidda arrimaha masiiriga waxaan sidoo kale mar kale hoosta ka xariiqayaa kuna baaqayaa in dastuurka ku-meel gaarka ah ee ummadda Soomaaliyeed ku heshiisay sanadkii 2012 uu yahay
tiirka isku haya dalka, sidaas darteedna wadahadal kasta oo dhacaya waxaa lagama maarmaan ah in dastuurka uu saldhig u noqdo xal u helidda arrimaha masiiriga ah, ayuu yiri madaxweyne hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhanka kale u soo jeediyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in uu qaato kaalintiisa dastuuriga ah ee isku haynta iyo midnimada dalka. sidaas darteed waxaa lagama maarmaan ah in madaxweynuhu uu qaato mas'uuliyadda ka soo qaybgalka shirka ee dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, uuna si toos ah ugu martiqaado shirka loo ballamay 3 bisha Luulyo oo muhiim u ah in dalka yeesho jiho siyaasadeed oo loo dhan yahay, ayuu sidoo kale qoraalkiisa ku yiri. war-saxaafadeedkan ka soo baxay madaxweyne hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku soo aadaya xilli madaxweyne Xasan Sheekh uu kulan magaalada Muqdisho kula qaatay siyaasiyiinta mucaaradka ah. ciidanka booliska ayaa gacanta ku soo dhigay dad lagu eedeeyay falal lid ku ah amniga. ciidanka booliska gobolka Banaadir ayaa gacanta ku soo dhigay 17 isugu jira askar iyo shacab ku eedeysan qalqalgelin amni. war ka soo baxay ciidanka booliska ayaa lagu sheegay in howlgal wadajir ah oo ay fuliyeen ciidanka booliska gobolka Banaadir iyo hay'adaha amniga lagu soo qabtay shacab iyo askar ka tirsan ciidamada qalabka sida, kuwaas oo ku eedeysan in ay jibiyeen amarkii mamnuucayay in rasaas lagu rido dabaaldegyada maalmaha xorriyadda, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay taliska booliska. baaritaan ayaa lagu ogaan doonaa khasaaraha ka dhashay rasaastii sharci darrada ahayd ee la riday. eedeysanayaasha waxaa la orgeyn doonaa maxkamadda awood u leh si sharciga loo waafajiyo, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay booliska. sidoo kale hay-adaha amniga ayaa baadigoobaya tiro kale oo la tuhunsan yahay oo ay xirooyin ciidan ka rideen rasaas, ayaa sidoo kale qoraalka lagu yiri. waxaana shacabka caasimadda ugu baaqaynaa in ay nala soo wadaagaan xog kasta oo ku saabsan cid kasta oo amniga liddi ku ah, ayaa lagu yiri sidoo kale qoraalka ka soo baxay taliska ciidanka booliska. warkaan ka soo baxay taliska ciidanka booliska ayaa ku soo aadaya xilli la mamnuucay in la rido rasaas maalmaha xorriyadda. tan akhbaaradka caalamka, Iiraan oo fulisay xukuno isugu jira dilal iyo xarig kadib dagaalkii Israa'iil. dowladda Iiraan ayaa fulisay mowjado xarig iyo xukuno dil ah kuwaas oo lagu fuliyay dad looga shakiyay in ay xiriir la leeyihiin hay'adaha sirdoonka Israa'iil kadib dagaalkii dhawaan dhexmaray labada dal. arrintan ayaa timid kadib markii talaabadan hogaamiyayaasha dalkaasi ku tilmaameen in ay tahay mid aan hore loo arag oo ay ku soo xadgudbeen laamaha ammaanka Iiraan, isla markaana ay ku kaceen wakiilo Israa'iiliyiin. mas'uuliyiinta tuhunsan in macluumaadka la siiyay Israa'iil ay qayb ka qaateen dilal joogto ahaa oo lagu bartilmaameedsaday xubno sarsare oo intii uu socday dagaalka. dadkaas waxaa ka mid ah Xuseen Salami, taliyihii ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan. weerarada Israa'iil ayaa sidoo kale lala beegsaday tiro kale oo saameyn ku leh barnaamijka nuclear-ka Iiraan oo ay ku jiraan 6 saynisyahano oo nuclear ah, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Tasniim ee xiriirka la leh dowladda Iiraan. dadka reer Iiraan waxa aanay isku mid ka ahayn waa basaasnimada. Mossad, sirdoonka Israa'iil, waa laga tiro badan yahay, deegaanna kuma laha dalkaas, laakiinse waxay la socdaan waxa ay sameynayaan saynisyahanada Iiraan. waxay ka qayb galaan shirar lala yeelanayo generaalada Iiraan. waxay u noqotay ruuxaan oo aysan arki karin Iiraaniyiinta. Mossad waxaa laga yaabaa in ay hayso xog aysan maamulka Iiraan haynin. Mossad ma aysan gelin dhammaadkii dagaalka iyo habeenkii dagaalka, waxay ku sugnaayeen Iiraan. mas'uuliyiinta Iiraan waxay beegsadeen cid kasta oo lagu tuhmayo in ay la shaqeeyaan sirdoonka shisheeye, iyagoo sheegay in arrintaasi ay tahay mid lagu sugayo amniga qaranka Iiraan. maalintii 12aad ee dagaalka, Iiraan waxa ay daldashay 3 nin oo looga shakisan yahay in ay basaasiin Israa'iil ahaayeen. mas'uuliyiinta waxay shaaciyeen in 100 qof la xiray, kuwaas oo looga shakiyay basaasnimo.